السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عنو ونكسن داوديال halkani waa telefishinka Himilo ku soo dhawaada xulka wararka qodobadan idin haynana waxa kamida shirka mucaaradka iyo sidoo kale xubnaha maamul goboleedyada oo la filayo inuu ka dhaco magaalada Kismaayo iyo qabanqaabadii ugu dambeysay oo halkaas ka socota. sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa duqeymo diyaaradeed oo ka dhacay gobolka Jubbada Dhexe iyo dawladda Soomaaliya oo sheegtay in la dilay saraakiil sarsaro oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. waxaan sidoo kale idin soo gudbin doonaa hadii Allah uu dalo raali ka noqdo maalinkii afraad oo xiriira magaalada Boorama waxa ka socda isku horimaadyo u dhaxeeya dad shacab oo hubeysan iyo sidoo kale ciidanka militariga Somaliland. qodobadaas iyo waxyaabihii kale ugu soo kordha ayaan idin faahfaahin doonaa ee soo dhawaada. qodobkeena ugu horeeya aan ku bilaabay magaala xeebeedka Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose 10 bishan waxa la filayaa inuu ka dhaco shir ay yeelanayaan madaxda maamul goboleedyada qaarkood iyo sidoo kale xubnaha ugu waaweyn mucaaradka Soomaaliya. shirkan oo filla Soomaaliya u aragto mid iyada lid ku ah waxa abaabulkiisa iska leh madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe. madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland ayaa sidoo kale shirka lagu casuumay, laakiin waxa jira doodo waaweyn oo shirka hareeyay kaasi oo keeni kara in ku dib u dhaco. xubnaha mucaaradka qaarkood ayaa soo jeediyay in shirka laga reebo madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Muqdisho ku sugan muddo ku dhow bil. xubnaha mucaaradka qaarkood waxay sheegeen in xubnaha mucaaradka iyo Farmaajo aysan heshiis ahayn, taasina aysan macquul ahayn in qodobo lagu heshiiyay shirka laga soo saaro. warmurtiyeedka laga soo saari doono shirka ayaa isha lagu hayaa waxaana jiro dhowr xubnood ka kooban oo loo xil saaray sidii arrinka u soo xalin lahaayeen, laakiin ila wargal ah ayaa waxay tilmaameen inuu Farmaajo doonayo inuu shirka ka qayb galo halka Axmed Madoobena sidaas si lamida uu rabo, laakiin madaxda mucaaradka qaarkood ay doonayaan in shirka Farmaajo laga reebo. filla Soomaaliya ayaa juhdi xoog dhaqaale iyo dadaal ku bixinaysa si shirkaasi loo fashilin lahaa. magaalada Boorama ee gobolka Awdal wararka ka imaanaya waxay tilmaamayaan in dhowrkii saac la soo dhaafay halkaasi laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo isku soo horjeeda. dibadbaxyada halkaasi ka socda oo maalinkii afraad galay waxa ku dhintay ku dhawaad 23 ruux, tiro inta ka badanna waa ay ku dhaawacmeen. adeega gurmadka degdega ah ee ambulance ayaa meel walba ka dhawaaqaya magaaladana qaar waxa laga shidayaa dadka iyo ciidamaduna way isku hor imaanayaan. madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cirro ayaa amar ku bixiyay in militariga si degdeg ah looga saaro iyadoo magaalada maanta ay la wareegeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee la yiraahdo RRU. wararka iyo macluumaadkan heleena waxay tilmaamayaan in magaalada sidoo kale bandow kooban lagu soo rogay iyadoo dadka ay u daateen saldhigii weynaa ee magaalada, xaruntii maamulku ku shaqeynayay, xaruntii barasaabka iyo sidoo kale baankii dhexe ee magaalada Boorama. odayaal isxilqaamay oo ka soo kala jeeda qabaa'ilada isku haya magaalada ayaa la soo warinayaa inay xalay yeesheen kulan degdeg ah walow kulanka lagu kala kacay qaybihii dambe. si walbaba ha ahaatee xaaladda magaaladu waa ay qasan tahay. dawladda Soomaaliyana waxay degdeg u amartay in si markaas la joojiyo tacadiyada ka dhanka ah bini'aadantinimada ee ka dhacaya magaalada Boorama ee gobolka Awdal. sidaas si lamida magaalada Seylac waxaa laga soo warinayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda. ugu dambeyntiina wararka laga helayo gobolka Jubbada Dhexe ayaa waxay tilmaamayaan in duqeymo diyaaradeed oo ka dhacay tuulada Maa'ida lagu dilay xubno sarsaro oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. dawladda Mareykanka iyo saaxiibada taageera ayaa duqeymahaasi fuliyay. goobta duqeynta laga fuliyay waxaa la sheegay inay ahayd bartilmaameed ay ku sugnaayeen madaxweyne ka tirsan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. 3 jeer oo kala duwan ayay duqeymuhu dhaceen. laba kamida waxaa la sheegay in si toos ah loo beegsaday goobta shirka uga socday 4 xubnood oo mid kamida uu yahay ragga qaabilsan maktabada qaali yiraahdo Al-Kataib ee qaabilsan qaraxyada iyo muuqaal duubista. dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in baaris dhab ah ay ku sameynayso ragga halkaasi lagu beegsaday. labadii toddobaad ee la soo dhaafay dawladda Soomaaliya ayaa laba jibaartay duqeymaha ka dhacaya gobolada Shabeellada Dhexe, Jubbada Dhexe, Hiiraan iyo Galgaduud. warkii xulka wararka waa naga intaa.